بسم الله qaybta labaad ee taxanaheennii aan uga hadlaynay sooyaalka nidaamka caafimaadka dadweynaha ee Soomaaliyeed maanta waxaanu diiradda ku saari doonaa muhiimadda ay inoo leedahay in dadka yaga uu helo nidaam shaqaynaya oo iyagu ay leeyihiin si aanu isula fahamno waxaanu tusaale idinkugu soo qaadanayaa nidaam kale oo u dhigma oo dal waliba oo dunida jira oo xor ah uu leeyahay si uu u jiro oo aan u dabar go'in nidaamka kan waa tusaale anigu aan isiri waa u dhigmaa maxaa yeelay nidaamka kan iyo nidaamka kale ee public healthiga waa laba nidaam ama laba hay-adood oo wadan kasta oo xor ah inuu yeesho uu ku qasban yahay nidaamkan aan tusaalaha u soo qaadanayo waxa uu yahay waa nidaam loo yaqaan ama hay-ad inuu yeesho wadan kasta oo difaaca u qaabilsan wasaarad ama waax loo yaqaan waaxda difaaca waaxda dagaalka waaxda gaashaandhigga waaxda difaaca wax noocaas oo kala marka wasaaradda gaashaandhigga oo aynu niraahno annaga wadan kasta oo dunida ah haddaanu lahayn wasaaradda gaashaandhigga ah waxa adkaanaysa in wadankaas uu awood u yeesho inuu difaaco dhulkiisa baddiisa cirkiisa iyo deegaanka ay ku nool yihiin dadkaasi xorta ah marka wax kasta oo lagu difaacayo xorriyadda dhulka cirka badda dadkaasi waa qasab in maxaa la dhihi jiray wadankaas uu yeesho haddii kale se waxa weeyaan wadamada cadawga ku ah wadankaasi ama dadkaasi waxay awood u yeelanayaan in ay ugu soo gudbaan dhulkoodii baddoodii cirkoodii oo ay markaa kala wareegaan waa haddii aanu wadankaasu lahayn difaac uu isaga difaaci karayo marka wadan waliba awoodiisa difaacaha ayay ku xiran tahay inta laga leexanayo ama aan la soo qaabili karahayn marka ciidan bay yeeshaan oo dhul ah bad ah cir ah oo waxaasoo dhan ku filan inaan wadankaasi loo soo dhowaan waxay kaloo yeeshaan wasaaraddaasi ay yeelataa ciidan intelligensiya ah oo sahmiyayaal oo sahandoona ciidankaasoo soo sahmiya ama la sii socda cadowga tallaabada uu qaadayo inta aanuba soo gaarin xadka wadankaasi marka ciidankaasi ama nidaamkaasi haddaanu jirin waxa weeye wadankaasi xorriyaddiisa ma sii jirayso haddii uu jiro inta uu jiro ayuunbay la ekaanaysaa marka wadankaasi sida uu isu difaaci karo oo xorriyaddiisa ay u jirayso marka laakiinse nidaamkan kale ee dantayadu ay tahay ee public health systemka waa hay-adda labaad ee sugaysa iyana wadankii xorta ahaa ee aan lagu soo xadgudbi karahayn ee wadankan maxaa la dhihi jiray caafimaadkiisa iyo xaalad kasta oo ku keenta cudur ka ilaalinaysa dadweynihii wadankaa ku noolaa wasaaradda dadweynaha caafimaadkooda u qaabilsan waxay sugaysaa caafimaadka iyo fayoobida dadka wadanka ku nool oo dhan waxay ka ilaalinaysaa hadday cudurrada ka imaan lahaayeen environmentiga sida hawadii oo kale hadday noqon lahayd ciidda ay ka imaan lahayd hadday noqon lahayd biyuhu ay ka imaan lahaayeen ama cunnadii iyo sanitationka ee fadarayda iyo saxaradii iyo wixii la midka ahaa hadday cudurrada ka imaan lahaayeen wasaaradda tan way u diyaarsan tahay oo waxaa haystaa ciidan u carbiyaysan oo intaasoo idirjiha ka qaabilaysa si aysan cudurro uga imaan waxay kaloo awood u leeyihiin wasaaradda tan infectious diseaseska wadamada kala baabi'iya sida qaaradeenoo kale ee hadday cudurrada ka imaan lahaayeen bacteriyada ama viruseska ama parasite waxa loo yaqaano jaraasiimtaasi cudurrada dhaliya iyo kuwa kaloo la mid ah fangahi iyo kuwa kale bay ku jiraan jaraasiimtaasi intaysan cudurrada ku keenin wadankii ayaa iyana ka hortagaan hadday cudurku ka imaan lahaa vector borne hadduu ahaan lahaa oo cudur oo uu keeno cayayaano sida malaariyada oo kale kaneecadu ay keento oo kale ama zoonotic diseaseska ee cudurrada ka dhasha xayawaanada ee dadka usoo gudba sida hadda cudurradan aynu arkayno ee maalin kastaba ebola uu ka mid yahay iyo waxa la midka ah maalin kastaba soo kordhaya soo baxaya waa in ay leedahay wasaaradda tan ilaalinaysa dadweynaha caafimaadkooda ama fayoobidooda waa in ay haysaa ciidan u tababaran oo waxaasoo dhan u diyaara hadday fursad ahaan tusaale ahaan dhici lahayd emergency oo kale
ciidan u diyaarsan oo emergency ka hortaga haddii emergency ama ay keenaan musiibooyinka ay dhacaanna ciidan u diyaarsan oo isla markiiba yareeya dhibaatadii ku imaan lahayd dadkeennii cudurrada ay ka midka yihiin non-communicable diseaseska cudurrada aan la isqaadsiin ee maxaa la dhihi jiray iyagu chronic diseaseska sida kaadi macaanta oo kale kansarkii oo kale iyo waxyaalaha kale la midka ee maanta dunida iyagana kusii kordhaya ee waddanka iyaguna uu la mid yahay oo kale iyana ciidan waxay haystaan u diyaarsan professionals u diyaarsan xirfadlayaal u diyaarsan oo waxaasoo dhan ka hortegaya sahminaya intaysan waxaasi nagu soo kordhin qaybta ugu liidata ee runtii aniga aan runtii doonaya inaan dadweynaha kala hadlo adiga gaar ahaan dadkiinan public healthga waxa weeyaan wasaaraddaasi caafimaadka ee ma healthcare systemka keliya looma yaqaan wasaaradda caafimaadka badanaabana nidaamyada wadamadan soo koraya ee Soomaaliya ay ka mid tahay oo kale waxa weeyaan wasaaradda caafimaadka dhanba waa wasaarad healthcare system ah wasaaradda weyn oo cudurkii markuu yimid kadib unbay daweyntiisii baxnaanintiisii ayuunbay u qaabilsan tahay taasoo ka dhigaysa markaa in aanuba jirin nidaam dadkii ka hortegaya in aanu cudurradii iyo wixii asbaabihii keeni lahaa xaaladaha cudurradu ku dhashaan dhanba ka hortegaysa marka waddanna waxaa lagu kala horumarsan yahay marka waddankii nidaamkiisa caafimaad uu horeeyo ama uu jiro ama uu shaqaynayo waddankaasi cudurradiisa iyo dhibkiisuna way yaraanayaan waa bil xaqiiqa laakiinse wadamada kale ee Afrika waddankeena oo kale ah maalin kastaaba waxaa la tacaalaysa xaalad yar oo looga hortagi lahaa wax sahlan in aad ku bixisaa malaayiin lacaga si loo daweeyo marka taana xal ma ahan arrintaasina aad baynu uga hadli doonaa hadday noqoto daweynta waa qayb ka mid ah public healthga waxaan loogu talagalay marka qofka raadkii hore difaacii hore lasoo jabo oo bakteeriyadii ay ciidankii ay soo jabiso oo uu nagu yimaado dhibaatooyin dhaawac na soo gaara markaas kadib waa qaybtii labaad ee difaaca ah ee preventionka ah oo secondary preventionkii in iyana maxaa la dhihi jiray laga hortago qofkii la daweeyo kadibna uu maxaa ku radaa waa nidaam noocaasa u shaqeynaya taana insha Allah xooga baan saari doonaa waddanka iyagana taariikhdiisii soo jireenka ahayd waxay xooga saareen maadaama ama policyga waddanka jiray iyo dhaqaalihii waddanka oo aan laguba talagelin in maxaan ku radaa xooga la saaro public healthga ama uu ahaa wax donor driven ahaa oo ku xirnaa mar kastaaba hay-adad kale wadamo kale oo inoo sheega talaalkan barnaamijka kan gudniinka kan iyo wax la mid ah ayaanu weligeena ku soo shicinay ama kanaacada tan waydan cunaysaa ayaa idinka daweyn wax noocaas oo kale un baynahayn waan arki doonaa hadda barnaamijyada ku xigaana insha Allah inta tabartayda aan ka hadli doonaa marka maanta muhiimadeedu waxay tahay public healthga muhiimadda uu u leeyahay dadka yaga waa wax aan la dhayalsan karahayn loona baahan yahay in loo diyaariyo ciidan tiro badan oo ummadayda u diyaarisa haddii la doonayo inay Soomaali jirto caafimaad ahaan fayoobi ahaan oo dadka iyagu ay noqdaan dad xayi ah oo dunida wax la qaybsada insha Allah qaybta saddexaadna wiiga dambeena soo bandhigi doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh